Assalaamu calaykum. Nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee wadna doofaar lagu bedelo isagoo laga bedelay wadnihiisii. David Bennett oo 57 jir ah ayaa si wanaagsan u shaqeeyay 3 maalmood kadib markii tijaabada 7 saacadood qaadatay ee tijaabada ay soo dhamaatay. Ku talaalitaanka ayaa loo tixgeliyay rajada ugu dambeysay ee lagu badbaadinayo nafta Mr. Bennett inkasta oo aysan weli cadayn waxa ay yihiin fursadaha badbaadada ee muddada dheer. Dhakhaatiirta jaamacadda Maryland Medical Center ayaa la siiyay fasax gaar ah oo ay siisay maamulka caafimaadka Mareykanka si ay u fuliyaan hawsha iyadoo lagu saleynayo in Mr. Bennett uu aqbalo cudurka wadnaha kaga dhacay si looga daaweeyo haddii kale uu dhiman karo. Waxaa loo arkay inay aanu aqbalin ku talaalitaanka bini'aadamka. Go'aanka ay dhakhaatiirtu inta badan qaataan marka uu bukaanku liito ayaa noocan oo kale ah. Doofaarka loo adeegsaday talaalka ayaa lagu sameeyay hiddo-wade si uu u soo saaro dhowr hiddo-sidayaal taasoo horseedi lahayd inuu xubinta uu diido jirka Mr. Bennett sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Kooxda caafimaadka ee samaysay talaalka waxay calaamad u tahay dhammaadka sanado cilmi baaris ah waxayna bedeli kartaa nolosha dad badan oo saf ugu jiray sugitaanka wadna loogu deeqo. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo sanad walba qiimeysa waxyaabaha markaasi dhacdooyinka markaasi ay dadku waxyaabaha inta badan ay u dhintaan ayaa 2 sano ee ugu dambeeyay oo cudurka faafa ee coronavirus adduunka ka jiray waxay diiwaan gelisay dad aad u fara badan oo u dhintay wadnaha iyo sidoo kale dadka u dhintay cudurka faafa ee COVID-19 waxaana barbardhigaasi lagu sameeyay inta sanadkan aan haatan kaga jirna ee bishan koowaad ee 2022 iyadoo ay u dhaxayso farqi aad u weyn inta u dhaxaysa 18 ilaa 32 milyan oo qof ayaa sanad walba u dhinta wadna xanuun. Dadka wadnaha u dhinta ee daafaha adduunka ku kala nool 2 sano ee ugu dambeeyay tiradu waxay u gaadhay 18 ilaa 30 inta u dhaxaysa oo ay ku qiyaastay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo la barbar dhigay dadka 2 sano ee ugu dambeeyay u dhintay cudurka faafa ee COVID-19 ay gaadheen markaasi 5 milyan iyo 500,000 oo qof. taa oo ah mid aan la barbar dhigi karin in dadkaasi ay yihiin dadka u dhintay markaasi wadnaha 30% inay yihiin dad u dhintay wadnaha. Mareykanka oo kaliya 17 qof ayaa maalin walba u dhimata wadna xanuun iyagoo sugaya markaasi in wadna laga bedelo halka 100,000 oo qof in ka badanna ay sugayaan in loogu deeqo wadno. Haddaba doofaarka ma waxa la waayay wax kale oo lagu bedelo? Culimada Islaamku waxay isku waafaqsan yihiin in wax walba oo lagu badbaadinayo nafta bini'aadamka ay tahay lama huraan maadaama ay daruuri tahay. Inkasta oo xaaraan yahay doofaarku haddana waa loo adeegsan karaa wax walba taas oo muujinaysa in nafta bini'aadamku ay muhiim tahay laguna badbaadin karo wax walba oo la samayn karo. Dad badan ayaa xusbitaalada ku sugaya markaasi wadna xanuunka markaas in wadnaha laga bedelo oo markaasi loogu deeqo wadna kale kuwa oo ay fursad muhiim u tahay. Haddaba maxaa keenay ma waxa la waayay wax kale oo lagu bedelo wadnaha doofaarka oo aan ahayn wadnaha doofaarka? Qodobo kooban ayaan isdul istaagi doonaa. Kadib saacado badan oo dhakhaatiirtu ay qalliin ku wadeen David Bennett ee Mareykanka u dhashay waxaa lagu guuleystay in jirkiisu uu la falgalo wadnaha doofaarka. Haddaba maadaama doofaarku yahay xaaraan ama nijaas maxaa keenay in bini'aadamka wadnihiisa uu ku shaqeeyo oo loo geliyo iyadoo la heli karayay xayawaano kale ama xoolo kale? Haddaba sida dhakhaatiirta iyo sidoo kale khubaradu ay sheegayaan waxaa markaasi aad iskugu dhow wadnaha bini'aadamka iyo midka doofaarka xajmi ahaan aad ay iskugu dhow yihiin wayna isla falgali karaan. Lama ogo sida wadnahaas la falgalay haatan maadaama in badan laga bedelay wax badan laga bedelay wadnaha doofaarka oo markaasi hiddo-sidayaashiisa ilaa 10 laga dilay wax badanna laga bedelay isla markaana loo eekaysiiyay kan bini'aadamka xajmi ahaanna uu leeyahay kan bini'aadamka sidaasna loogu bedelay wadnihii David Bennett ka u dhashay Mareykanka in haatan jirkiisu ku shaqeeyo wadnaha doofaarka oo si toos ah ula falgalo. Waxyaabaha badan ee caqabad xataa keeni kara waxa ka mid ah in wadnaha doofaarku ka weynaan karo midka bini'aadamka laakiin way isleeyihiin wax badanna waa laga bedelay dhinaca markaasi bey'ada ama waxa markaasi hiddo-sidayaashiisa oo in badan la burburiyay. Su'aal kale ayaa isweydiin leh
maadaama xanuunada ku dhaca bini'aadamka iyo xayawaanka ay kala duwan yihiin ama xoolaha ma u soo gudbi karaa wixii ku dhici jiray xoolaha iyo xayawaanka ee cudur ahaa bini'aadamka si taas looga hortago wax badan ayaa laga bedelay sidoo kale inuusan korin oo weynaanin wadnuhu ayaa lagala dagaalamay oo la burburiyey iyadoo wax badan laga bedelay haddaba maxaa keenay in wadna la bedelo ama wadna uu dhibaato sababo xataa loo dhinto haddaba inta badan sida khubarada caafimaadku isku wada waafaqsan yihiin waxa keenay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin khamrida sigaarka iyo waxyaabaha balwadda ee markaasi sanbabada aadka u waxyeeleeya iyo xididada iyo markaasi neerfaha oo khatar geliya markaasi wadnaha kadibna uu qofku saas ku leedo oo ku dhinto haddaba waad ka fogaan haatan wixii ka dambeeya in wadna doofaar qof bini'aadam la geliyeen waxay noqotay guul laakiin sida ka dhawaajiyeen khubaradu lama oga inta uu sii shaqayn doono laakiin haatan tijaabadii ugu horreysay haatan si toos ayuu shaqaynaya inkastoo khubaradu ay dul taagan yihiin markaasi dhinaca dhakhaatiirta caafimaadku ay dul taagan yihiin oo si tallaabo loola socdo